Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada casharkeena Basic HTML-ka. Casharkan waa casharkii saddexaad. Haddaynu soo furno PPT-ga halkan inoo yaala. Waxaynu ognahay cilmi kasta oo la baranaya inuu leeyahay wax la yiraahdo eray bixin ama terminology. Bal marka waxaan doonayaa inaynu casharkan saddexaad kaga hadalno HTML structure-ka ama qaab dhismeedka iyo eray bixinta la isticmaalo muxuu ahaayay structure-kiisa. sidaynu halkanba ku arkayno HTML-ku wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo elements ama wax la yiraahdo tags. haddaynu macnayno ereyga elements loo yaqaan ama tag loo yaqaan waxa weeyaan taagagaynu halkan ku arkayno ama shayadan halkan ku arkayno shaygan ama ereygan uu ku jiro angle bracket ee uu ku dhex qoran yahay HTML ayaa loo yaqaanaa maxay elements. sidoo kale isaga loo yaqaanaa maxay tag. haddaan hadhow toolo ku raahdo muxuu ahaayay HTML elements qor ama haddaan ku raahdo HTML tag qor, macnaha waxaan u jeedaayoon ku leeyahay qor maxay kuwan weeyaan, kuwana loo yaqaanaa maxay HTML elements ama HTML tags. labada erey elements iyo tag waa isku macne, qoraal ahaan waa laba erey oo kala duwan, laakiin macna ahaan waxay sheegayaan waa maxay waa laba erey ama laba erey oo terminology-goodu isku mid yahay ama isku macna isku wax tilmaamaya. marka elements-kaasi ama tags-kaasi waxay ku bilaabmaan wax la yiraahdo open tag, sidaynu halkanba ku arkayno ah HTML open tag, waxayna ku dhamaadaan HTML close tag. oo open-kiyo close-ka waxaad ku kala garanaysaa waxa weeyaan open-ku wuxuu ku bilaabmaa angle bracket, deetana element-ka ama tag-ga magaciisa then angle bracket. ka xidhanina wuxuu ku bilaabmaa angle bracket kadibna backward slash ama calaamadan jiifta kadibna tag-ga magaciisa. kana loo yaqaanaa maxay close tag, kana waxaa la yiraahdaa maxay close, kana waxaa la yiraahdaa maxay open tag. tags-kaasi waxay leeyihiin wax la yiraahdo maxay nested, oo macnihiisu yahay inay isku dhex qoran yihiin ama tagba tagga kale ama elementka kale ku dhex qoran yahay, waxaasaa loo yaqaanaa maxay nested. sidaynu imanka halkan ku arkayna halka u horeysa waxa u horeeya ama tagga ugu horeeya waa maxay waa HTML elements, kaasoo uu ku bilaabmo HTML page-ku marka la sameynayo code-ka ama structure. tagga ugu horeeya ku bilaabmaa waa maxay HTML tag, waxaana halka ugu dambeysa ayuu ka xidhan yahay maxay waa close tags. waxa HTML element-ki ama tag-gi waxa ku sii dhex jira laba tag oo kale oo ah labada qaybood ee page-ku ugu qaybsamayo. markaynu page website sameynayno ama page HTML markaynu sameynayno waxaynu arki doonaa laba qaybood oo waaweyn buu qaybsami doonaa, wax la yiraahdo head section iyo qayb la yiraahdo body section. waynu arki doonaa taagaga lagu dhex qoro head section-ka iyo waxyaabaha loo isticmaalo, sidoo kale waynu arki doonaa maxay taagaga loo isticmaalo body section-ka. laakiin waxaynu halkaa ka fahnay maxay in HTML-ku uu ka kooban yahay wax la yiraahdo elements ama tags, kuwaasoo midba midka kale uu ku sii dhex qoran yahay. sidoo kale waxaynu halkan ka fahmaynaa u baahan inaanu barano terminology ahaan tags-ka ama elements-ku sidoo kale waxay leeyihiin wax loo yaqaan attributes. attributes-ka example ba halkan lagu soo qaatay, tusaale ahaan waxa la soo qaatay image tag ama image elements. attribute-du leeyahay waxa kamid ah src, waxa kaloo kamid ah maxay alter attribute. src attribute waxa loo isticmaalaa ama image tag waxa loo isticmaalaa sidaynu arki doono casharada soo socda markaad page-kaaga sawir soo gelinayso ama looga soo gelinayso any image hadaad soo gelinayso tag-gan aad isticmaalaysaa. si tag-gani image-ka uu u soo akhriyo ama uu u soo muuqdo in maxay haydayeen image-kaasi waxaad u baahantahay inaad isticmaashid attribute-kaasoo la yiraahdo src ama source laga soo gaabiyey. deedna waxaad ku qoraysaa image-ka magaciisii iyo extension file-ka ama type-kii uu image-ku ahaa. kuwan baa loo yaqaanaa maxay elements ama tags, kanna waxaa loo yaqaanaa maxay attributes. attribute-ku shayga uu leeyahay la siiyo ama na waxaa loo yaqaanaa maxay value. HTML-ku saddexdaa shay uu ka kooban yahay, kaasoo ah shayga koowaad oo ah tag-gii ama element-kii, shayga labaad oo ah muxuu ahaayay attribute-kii, iyo shayga saddexaad oo ah muxuu ahaayay attribute value-gii. ama markaad attribute-ka qorto value ku qaadanaya. sidoo kale HTML
structure-ku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waaweyn sidaynu halkanba ku arkayno oo ah muxuu ahaayey body section iyo head section sidaynu arki doonno casharada soo socdo. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen basic structure-ka HTML-ka uu ka kooban yahay iyo erey bixinta ama terminology-ga la isticmaalo oo ah maxay elements ama tag. sidoo kale waxaanu baranay maxay in tags-ka ama elements-ku ay leeyihiin wax la yiraahdo maxay attributes. sidoo kale attribute-kuna inuu leeyahay wax la yiraahdo maxay value oo ah attribute-ku qiimaha siinaysa ama value-ga siinaysa. waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen. casharka xigay intaynu ku kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo practice wanaagsan.